السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتي أصحابتي waa idin salaamay maanta waxaan joogaa Daarusalaam waxaan soo booqanay supermarketka la magac baxay Beec Jaban kaasi oo ku yaala agagaarka Daarusalaam waliba dhanka suuq yaraha aag ugu dhow wuxuu ka mid yahay supermarketkan Beec Jaban sida ugu muuqdo magaca supermarket Beec Jaban wuxuu ka mid yahay supermarket ugu wanaagsan ee ku yaala agagaarka Daarusalaam waxaan ku soo aaday xilli ay dadka meesha degan baahi badan u qabaan inay helaan dukaan oo u dhow inay ka sahlayaan adeega meel dhow inay ka heli karaan waxaan u soo dhaweeyay inay helaan adeeg Beec Jaban sida magaciisa ka muuqdaba dadkan aad u riyaaqeen sababtoo ah waxay ka maarmeen aadista suuqa bakaaraha waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo gudoomiyaha supermarketka Beec Jaban kaasi oo ahaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ibrahim Xaaji waan dhowhay runtii waxaan kaaga mahadcelinayaa marka hore booqashada aad soo booqatay Beec Jaban supermarket waxaan ku leeyahay soo dhawow ku soo dhawow xafiiska Beec Jaban aad oo mahadsantahay gudoomiye martiqaadka iyo sida nagu aqbashay inaan ku soo booqano adigoo adag waqtiga adag xaaladda iska dareemka xilli shaqo ah oo xilli habeen ah aad kaga mahadcelinaa ugu horeen سأرني عن هروس وأرني بمشى السيانة عادي هنا وشرحتي بقارك دكانك من دليل عن واضح حسيت سيدي شو تشينا هولانا أسبوع قبض إلهي سبحانه وتعالى عزمك ورك مع السن ونوفذي نوصقري إن وحون أورنو مركوانا وحون بلاوها ومحوها bilaaw oo ganacsi supermarket ah saad arkaysay meelihii aad tagtay waa muxuu ahaa branjiye ka mid ah Beec Jaban supermarket insha Allah inta awoodeyna aan hadduu la yiraahdo waa gaarsiin doonaa marka qaab nooca u adeegtaan dadka ma waxay soo dalbadaan gurigooda loogu geeyaa bas dukaanka imaadaan yani system nooca u adeegtaan dhammaan macaamiisha Beec Jaban saaran adeegyada waxay ku qaataan delivery oo muxuu ahaa Beec Jaban uu bixiyo haday tahay raashinka haday tahay maacunta haday tahay muxuu ahaa elektroniga haday tahay gaaska haday tahay joodariyaasha shumacyada qofkii markaas dalab soo dirsada waa loo shaqeeyaa oo muxuu ahaa Beec Jaban wuxuu bixiyaa delivery يعني قاب أونلاين أما سقاب تليفون وقصود بنا قفكا dadka waxay ku dirsadaan muxuu ahaa telefono inta badan waxay hayaan customer care ka Beec Jaban ay hayaan way soo wacaan qaybta muxuu ahaa qaybta supermarketka ah haday tahay qaybta gaaska oo muxuu ahaa customer care gaar ah leh Beec Jaban qof kasto customerada Beec Jaban kamid ahna wuxuu la soo xiriiraa numberkaas customer care-ka dalabku markaas rabo soo sheegtaa waan loo shaqeeyaa dadkii ay ku guriyooda jooga gaariga uu keenayo waayo xaalada xamro waqti dareemka in qofka ku qasbanaa inuu tago ama gaari gacan uu soo wato alaabta si saxaafada loo geeyo misleedahay systemkan hadda wax badan lagu reestay ما شاء الله dadka magaalada hadda aan joogno tarxiinow ma ahan xilligii 2000 ma ahan 2005 ma ahan waxaan joognaa 2024 waan dareemi kartaa runtii in hadda magaalada Muqdisho ay ku talaabsanayso ganacsiga muxuu ahaa cusub oo casri ah muxuu ahaa jaan qaadayo caalamka waa runtii meesha hadda ganacsiga uu guuray in adeegyada ay noqdaan kuwa muxuu ahaa leh service leh waxaan ula jeedaa qofka customer-ka wax gata in uu helo service muxuu ahaa lagu shaqeynayo oo ku haboon waqtigeeda on time lagu shaqeeyo hadda waxaan joognaa faraca labaad ama faraci koowaad oo ka asaasay Beec Jaban kaasi oo la magac baxay Beec Jaban store wuxuu ku yaalaa agagaarka dhanka suuqa Jayga ee isla Daarusalaam Beec Jaban store waa mid kamid ah xilli habeen ah oo hadda arkaysana saacada 4 saac habeenimo ayay hadda ku sii shaqeysaa balse waa uu furan yahay anytime waqti walba waxaana dadka si hagaagsan ay ugu adeeganayaan
waxaa ii suurta gashay inaan weydiiyey mid ka mid ah howlwadeennada ka shaqeeya beec jaban store. aasaaska laga bilaabay qaybtaas waxay ahayd qaybta dambe gadaal laga sameeyey. Si fiican. beec jaban store waxa uu ka shaqeeyaa badeecadaha iyo sida gaaska iyo wixii la halmaado. hadda aan joogno qaybta koowaad aasaaska waxaan halkan ka bixinaa cuntooyinka iyo wixii la halmaado. beec jaban store waa qaybta koowaad oo aasaaska halkan.